يا حافظ القرآن هاكم فرحة فلقد بلغتم ختمة القرآن ما أروع اللحظات حين تصرمت أوقاتكم في لذة الإيمان يا حافظ القرآن هاكم فرحة فلقد بلغتم ختمة القرآن ما أروع اللحظات بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد يقول الله تبارك وتعالى وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين درسينا وحو كبلابنا آيات سغاشن iyo koobaad ee suuratul baqara Allah wuxuu leeyahay subhanahu wa ta'ala wa idha qila lahum hadii yahuuda loo yiraahdo reer bani israa'iil aaminu rumeeya bima quraanki rumeeya iyo waxyigi anzala Allah ilaahay oo soo dajiyay qaaluu waxay leeyihiin yahuudu nu'minu waxaan rumaynaynaa بما شيء أنزل لسودجيه علينا كركنا لجسودجيه والرسول أننا نلا صادر لجسودجيه ويكفرون وحين كقالوا بيان بما شيء وراءه قرآن كاس أيدهم ورمينا كدم بيه والحال هو متكاس أي بيننا يانا الحق أو يا متك حقها وصبنا مصدقا حال أو يا ولي متك رمينا يا لما معهم أيها معوذ وحي هذا أو توراة قلوا حتى النبي محمد فلما تقتلون محاد دليسان وهاتين كوي الدله أنبياء الله إلهي رسوشي من قبل هذا الكهر إن كنتم هداتهين مؤمنين كور ميسان سات شكتين كتاب التوراة وعن كسو قد جرني تفسير في سورة ديهات سورة البقرة gaar ahaan meeshii looga waramayay xumaanadii reer bani Israa'iil Allah wuxuu sheegay subhanahu wa ta'ala yahuuda hadii la yiraahdo war yahuuday rumeeya oo raaca wixii Ilaahay uu soo dajiyay oo Qur'aan ah oo diin ah cidoo raba Ilaahay ku soo dajiyay gaar ahaan kitaabkii Nabi Maxamed Ilaahay uu ku soo dajiyay kaleey salaatu wasalaam raaca oo rumeeya hadii la yiraahdo waxay leeyihiin yahuudu annagu waxaan qaadanaynaa oo rumaysanahay oo aan raacaynaa kaliya wixii Ilaahay uu ku soo dajiyay anbiyadii reer bani Israa'iil gaar ahaan Nabi Muuse kaleey salaatu wasalaam oo kitaabkii Tawraada ay kala jeedaan Ilaahay markaa wuxuu yiri waxaad ku tiraa Nabi Maxamedow hadaa Tawraad rumaysnaydeen anbiyadii Ilaahay oo Tawraad dadka ku maamuleysay maxaad u baabiiseen arintaas oo loola jeedo in dadka loo cadeeyo warka yahuuda oo ah kitaabkii Tawraada ay rumaysanahay inuu yahay war hurguf oo been ah oo waxba ka jirin maxay yeelay Tawraad rumaysnaa lahaayeen oo Tawraad ay ku dhaqmi lahaayeen anbiyadii Ilaahay oo kitaabkii Tawraad ay dadka ku maamuleysay ma laayeen Allah markaa wuxuu yiri wada qiila lahum hadii loo yiraahdo yahuuda magaalada Madiina joogta iyo kuwa kale caalamka daafihiisa ku nool aaminu rumeeya yahuuday bima quraanki rumeeya anzala Allah alla oo soo dajiyay quraanka Nabi Maxamed lagu soo dajiyay raaca kitaabkii نبي عيسى لغو سو دجيود بينيدينا اسغنا رميا قالوا waxay leeyihiin nuuminu waxaan rumaynaynaa bima sheegi unzila la soo dajiyo calayna anaga korkeena lagu soo dajiyo anaga korkeena lagu soo dajiyo waxay ka wadaan rasuulka anaga noo soo diray quraankii lagu soo dajiyay ayaan rumaynaynaa ay leeyihiin oo tawraadaha wayakfuruna waana ku gaaloobayaan bima sheegi waraahu gadaashiisa aha oo tawraad kadib Ilaahay uu soo dajiyay oo quraan Ilaahayna ah وما نبي عيسى لغو سو دجيه عليه السلام اما نبي محمد لغو سو دجيه والحال هو كاس اي بيننا يانو ku gaaloobayaan oo tawraad ka dambeeyana alhaq oo yamidkii xaqaa iyo sugnaa oo kitaabkii tawraadaha aan lagu nasakhay musaddiqan hal oo waliba midkaas uu yahay tawraad kadib la soo dajiyay kii rumaynaya oo waafaqsan lima macahum ayaga macooda wixii ahaado tawraad ah oo kitaabka quraanka iyo tawraad meela iska waafaqsan yihiin ayaa jira
waxyaabaha ku saabsan tawxiidka waa iska waafaqsan yihiin akhbaarta waxa ku saabsan waa iska waafaqsan yihiin jannada iyo naarta iyo qiyaamaha ka waramida laga warama waa iska waafaqsan yihiin oo isku sii waramayaan sidoo kale maadaama kitaabka quraanka uu yahay kitaabka tawraadu uu sheegay soo dejinta kitaabka quraanka la soo dejiyay waa waafaqid kitaabka quraanka uu waafaqayo iyo rumayn kitaabka quraanka uu rumaynayo wixii kitaabka tawraada ku yaalay qul marka waxa tiraahdaa nabi maxamedow markay waxa isku andacoodaan yahuudu oo ay dhahaan anagu tawraadan rumaysanahay laakiin tawraad kadib wax la soo dejiyay ma raacayno falima taqtuluna wayhe maxad u dilaysaan kudhe anbiya allah ilaahi rusushiisi anbiyadiisi min qablu hadda ka hor maxad u ahiidan kuwii dila ficilkii waxa laga cabiray ficil mudaaric iyo wax hadda dhacaya laga cabiray si shayga loo fool xumeeyo maxad marka u dilaysaan oo u laynaysaan oo u baabi'inaysaan anbiyada ilaahi waxa laga wadaa maxad u ahiideen kuwii dila oo maxad u dili jirteen anbiyada ilaahi hadda ka hor in kuntum hadatihin mu'miniina kuwa tawraad rumeeyaysaad sheegaydaan tawraad waa rumaysanna hada aad sheegaydaan marka waa been wax diinood rumaysantiina lama arko hadda tawraad rumaysnaa lahaydeenna anbiyadii ilaahay oo tawraad idinku maamulaysay ma aadnaan laydeen walaqad jaakum wallahi laqad jaakum waxa idin yimid muusa nabi muuse bil bayinati mu'jizooyin iyo aayada cad idin la yimid thumma inta kadibna ittakhadtum waxaad ka samaysateen oo ka yeelateen al-ijla dibigi ilaahan macbuudad ka yeelateen min ba'dihi muusa tagitaankiisii kadib wal hal antum adinkuna markaas dhaalimuuna aatiin kuwa dhaalimiinoo naftooda dulmay oo naftooda hafray Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu sheegaa reer banu Israa'iil waligood inay dhaqan iyo caado u lahaayeen diinta inay khilaafaan anbiyada ilaahay inay khilaafaan xaqa inay caasiyaan nabi ay khilaafaan oo warkiisa diidaanna oo soo horeeynin nabi maxamed alayhi salatu wasalaam nabi kale iska daayay nabi Muusa oo ay hadda ku faanayaan inay raaceen oo rumeeyeen sheeganayaanna wixii lagu soo dejiyay inay rumaysan yihiin ayaa Allah wuxuu sheegaa subhanahu wa ta'ala asaga laftirkiisa inay beeni jireen hore waa u soo marnay wixii ku saabsanaa nabi Muusa alayhi salatu wasalaam markii meeshii ilaahay uu kula ballamay oo tuurusiina ahayd oo aaday si kitaabkii tawraadaha ilaahay uu waxyoodo subhanahu wa ta'ala oo kitaabkii tawraadaha loo soo siiyo ayaa intii nabigu maqnaay waxay sameysteen wax muuqaal dibiile oo ay ka sameeyeen dahabkoodii iyo waxyaabo isku qurxi jireen kadibna sheegiyay waxay sheegeen inuu yahay shay ilaahayaho la caabudo cibaado mudan kadibna intoodii badneed waa kuwa caabuday dibigi Allah markuu wuxuu leeyahay subhanahu wa ta'ala hadda ka hor nabi Muusa markuu idinka tagay alayhi salatu wasalaam soo dibiga caabudeen adinku waliba dhaalimiina nabi Muusa raacsannahay nabi Muusa rumaysannahay tawraadii nabi Muusa lagu soo dejiyaan waligeena ku dhaqmayno haysanay inay beenta soo iskama cadda arintan marka waa arin nabiga alayhi salatu wasalaam lagu qalbi dejina nimankaana lagu karjabina nabiga markaas la jooga alayhi salatu wasalaam waxa dibiga caabuday kuwii nabiga la joogay ma aha laakiin waa uu yaashud waxa marka la cadeynaa oo la sheegaa sharci khilaafka yahuudu inay firiya farac u leeyihiin Allah marka wuxuu yiri walaqad jaakum wallahi laqad jaakum waxa idin yimid yahuuday Muusa nabi Muuse muxuu idin la yimid bil bayinati mu'jizooyin cadcad idin la yimid thumma inta kadibna markuu mu'jizooyinka iyo aayadii quraanka idin la yimid ittakhadtum waxaad ka yeelateen al-ijla dibigi ay ilaahanaad ka yeelateen macbuudi mid la caabudo min ba'dihi tagitaankii Muusa uu idinka tagay oo meeshuu ilaahay kula soo warrami lahaay oo aaday kadib ayaad taas sameeyeen oo saas falkideen wal hal antum adinkuna dhaalimuuna aatihin kuwi dhaalimiinoo shirki ku dhacay maxaa yeelay dhulm iyo gardarro midka ugu weyn waa shirki aad ku dhacdeen naftiina waa dulunteeno naftiina cadaabad u shaqeydeen weyd akhadna wadkuru waxa xusuusataan sidoo kale reer bani israa'iilow id waqti akhadna aan qaadnay miisaaqakum ballankiini ahaa kitaabka tawraada inaad ku dhaqantaan warafacna kadibna aan rujinay oo aan qaadnay fawqakum korkiina atuura jabalki iyo buurti idinkuna niri khuduu qaata ma aataynaakum waxa idin siinay oo tawraad ah qaata biquwwatin si dhab ah oo go'aan leh u qaata wasma'u maqlana waxa la idin waxyoonaayo waxa la idin faraayo waxa la idin ka reebaa qaalu marka waxay dhaheen sami'na wa maqalnay waxana la faraayo waxa nagala reebaa
وعصينا لكن واسكع عاسينو وادينو وعن صيرنا وأشربوا وحال العبسية إلهي سبحانه وتعالى في قلوبهم قلوبتو وحال العبسي العجلة دبيجي يجعل كعبادة دبيجة أيها العبسي بكفرهم قال لمدو ذا سببتيت قل وحاتي النبي محمد بئس ما شيء وحا أحم هذا شيء قصو يأمركم أو ذنفرايو به شيء بإيمانكم إيمان كينو وحا أحم هذا الكينان سمعنا وعصينا يدبي العابد إن كنتم وحدات أهاتين مؤمنين ومؤمنين وإلا مؤمنين بمتهدين يهودي وعشاكتين توراة إني ولي قد رميسنايين نبي موسى عليه الصلاة والسلام ولي قد رعسنايين الله مركب ماشان وحكو عدي يهود إن أي هايين ولي قد با ونبي موسى عليه الصلاة والسلام خلافة كتابك إلهي نبي موسى وكسو دجيو التوراة هنا كردغن كيسك وكوكو عن سيرين أهايين إلهي عدي كتابك التوراة هنا سان هربو سومرني markii ilaahay oo nabi Muuse u soo dhiibay nabi Muusena oo ula yimid reer bani Israa'iil way diideen kitaabkii Tawraadahay wixii ku yaala inay ku dhaqmaan markii dambana qasab ayaa lagu ogolaysiiyay kitaabkii Tawraadahay wixii ku yeelay oo buur meeshaas ku tiilay ayaa inta la soo rujiyaa korkooda la keenay sida daruurtii oo kale san hore u soo marnay markaas la yiri laba kala doorta in buurta la idinku sii daayo oo aad ku baabadaan iyo inaad ogolaataanood ku dhaqantaan kitaabka Tawraada wax ku yaala inaad ku dhaqmaydaana aad aqbashaan arintaasna aad ballan Ilaahay kula gashaan subhanahu wa ta'ala kadibna way baqeen ballankiina way galeen Ilaahay subhanahu wa ta'ala waxay ballan kula galeen kitaabka Tawraada inay aqbalayaan wax walba kitaabka Tawraada ku yaalan ay ku dhaqmayaan wixii kitaabka Tawraada lagu faray ay fartoomayaan kitaabka Tawraada wixii looga reebana ay ka reebtoomayaan oo ay ka harayaan kadibna waxa la yiri maqla waxa la idin leeyahay oo dhagraariciya kuna dhaqma shayga la idin leeyahay oo aqbala ayaguna waxay dhaheen waxaan la leeyahay waa maqalnay laakiin waa diidnay inaan ku dhaqanno Allah wuxuu kala sheegay subhanahu wa ta'ala qalbigooda in la cabsiyay jacaylka ay jecel yihiin dib inay caabudaan maxaa yeelay waagi hore waxay ahaayeen mushrikiin asnaamta caabuda maadaama asnaamta caabudu jireen ay asnaamtii cibaadadeedii u xiiseen markii mid ayaa kamiduhu dibi inta u sameeyay oo yiri dibigaana ilaaheeya isla markiiba waa iska daba shubeen dibigii cibaadadii la caabudi lahaa ilaahay marka wuxuu ka dhigay wax qulubtooda la cabsiyo oo kale dibiga iyo cibaadada dibiga jacaylka ay jecel yihiin wax qulubtooda la cabsiyo qulubtooda lagu shubay kadibna Allah wuxuu yiri subhanahu wa ta'ala iimaanka aad sheeganaysaan oo aad leedihiin weligeena waxaan rumaysnayn kitaabkii Tawraada waxa uu fara ayaa xumaaday oo wax uu xumaaday waa hadii iimaanku jiro wala iimaanku ma jiro waxa uu fara waa maxay iimaankaasi haduu jiro dibi in la caabudo oo sanam la caabudo ama la yiraahdo hadalkii ilaahay waa ka maqlan laakiin waa ka diidnay inaan ku dhaqanno waxaasu wax iimaan qofluhu ay ku dhawaaqi karto ama ay sameey karto maaha hadad marka iimaan leedihiin xumaan badana wax iimaankiinu idin faraa macna hadalku waxa waaye iimaan malihidin kitaabkii Tawraada ay marumeysnidin waa rumeysanaana beenad ku sheegaydaan Allah marka wuxuu yiri wayda akhadna wadkuru xusuusta reer bani Israa'iil iyo yahuudi id waqti akhadna aan qaadnay miithaqakum ballankini aan idinka qaadnay oo ahaa inaad kitaabka Tawraada ku dhaqmaydaan ballankaas oo ahaa waliba ballan la adkeeyay oo dhaar la idin dhaarshay lagu adkeeyay oo warafacna aan qaadnay fawqakum korkiina atuura buurtiina korkiina aan heehaabinay kadibna idinku niri khuduu qaata ma aateenaakum waxa in siinay oo Tawraad ah biquwwatin waliba si dhab ah u qaata wan ciyaar ahayn biquwwatin si go'aan ah u qaata oo walac waysu ku jirin laba ku jirin wasma'u maqlan an idin niri xusuusta kadibna qaalo waxay dhaheen yahuudi madaxadayga dartiis samicna waa maqalnay waxana la leeyahay waxana la faraayo waxana gala reeba waa maqalnay laakiin waa casayna waa caasino warkaas waa iska diidnay culimada qaar waxay dhahaan markii hore carabkay ka dhaheen hadalka samicna waa casayna ayay dhaheen laakiin markii buurtii la kor keenay oo la yiri buurta miyaa la idinku kordaayaa mase warkan waa yeelaysaan waxay dhaheen samicna waa ataana markaas dheh qaarna waxay dhaheen culimada mufassiriinta kamida hadalkan waa lisaanul xaalkooda waa wixii
muuqaalkooda ka muuqday wa ilaa carab kama dhihin hadday carabka dhihi lahaayeen balaayaa ku dhici lahayd markaasi waxay leeyihiin markii buurtii la kor keenay waxay leeyihiin ilaahay warkii waa maqalnay warkiina waa qaadanay laakiin warka qaadashadiisu dhab kama aha qalbi ahaan oo qalbigoodu wuxuu leeyahay samicnaa wa casaynaa qalbiga kaleeyihiin waa maqalnay waxaana la leeyahay laakiin waa casaynaa waa diidnay wa ushribuu waxaa la cabsiiyaa ilaahay yidhi subxaanahu wa tacaala fii quluubihim quluubtooda waxaa la cabsiiyey alcijla ay xuba cibaadati alcijli dibiga in la caabudo iyo cibaadada dibiga jacaylkiisa ayaa quluubtooda la cabsiiyey sababtu waa maxay dibiga ay u jeclaadeen inay caabudaan bikufrihim kufrigoodii hore iyo gaalnimadoodii hore ay gaalo ahaa jireen sababteed ayay saas u noqdeen oo markii hore mushrikiin ahaa jireen xilligii masar ku noolaayeen qul waxaa tiraa nebi maxamedow bi'sa maa shay waxaa u xumaaday shaygaasoo ya'murukum oo idin faraayo bihi shaygaba iimaanukum iimaankiinu waxaa u xumaaday shaygaas hadalkiinna ah samicnaa wa casaynaa iyo dibi in la caabudo in kuntum waa haddaad ahaateen mu'miniina kuwa mu'miniina oo kitaabkii towraada rumaysan wa ilaa kitaabkii towraada maba rumaysnidin qul waxaa tiraa nebi maxamedow in kaanat lakum adinka hadday idiin ahaatay addaaru alaakhiratu daarta aakhiro cinda allaahi ilaahay agtiisa khaalisatan xaal ay tahay midii baraxla min duuni nnaasi dadka sokadooda fatamanaw lmowta geerida jeclaada oo geerida tuuga in kuntum haddaad tihiin saadiqiina kuwa run sheega walan yatamanawhu ma tamaninayaan mowdka iyo dhimashada abadan weligood yahuudu bimaa qadamat aydiihim wixii gacmahoodu ay hormarsadeen sababtood wallaahu ilaahayna caliimun waa midka ku cilmi badan bidaalimiina dadka daalimiinta ah nimankan yahuudda ahi waxay ahay niman faan badan waxyaabay ku faani jireen qaarkood ilaaha qur-aanka ku sheegay waa noo imaan doonaan waxay dhihi jireen naxnu abnaa'ullaahi wa axibbaa'uhu heerkay isgeeyeen heer sare ayuu ahaa annagu waxaan nahay ilaahay carruurtiisii iyo kuwii ilaahay ou jeclaa saasay dhihi jireen qiyaamaha haddii la tagana dadka dhammaantood naartay galayaan markii yahuudda laga reebo saasay dhihi jireen lan yadkhula aljannata ilaa man kaana huudan aw nasaaraa qolo walba waxay leedahay oo yahuudda ka miduhu ama nasaarada ka miduhu annaga keliya ayaa jannada gelayna yahuuddu marka waxay leeyihin kaliganaa jannada gelayna nasaaraduna waxay leeyihin kaliganaa jannada gelayna allah marka wuxuu leeyahay isagoo ahlu kitaabkii la hadlaya gaar ahaan yahuuddii ayaa ilaahay wuxuu leeyahay waxaad tiraa nebi maxamedow haddii maalinta qiyaamo oo idinka khaalis idiin tahay oo adinka jannada laydin geynaa inta adinka idinka soo hartana naarta lagu shubaayo waa arrin adinka idiin fiicane nolosha iyo dhimashadana sida aad sheegaydaan hadday wax u jiraan dhimashada idiin fiicane dhimashada tamaniyo dhimashada jeclaada allahna wuxuu sheegay subxaanahu wa tacaala dhimashada inaysan jeclaanaynin yahuudu nabiguna calayhi salaatu wasalaam hadda ka hor mubaahalo ugu yeeray iyo in ilmaha iyo dumarka iyo xoolaha iyo wax dhinta la isku keeno kadibna la ishabaaro lacnada ilaahay iyo masiibadana lagu habaaro iyo mowdka iyo geerida dadka beenta sheegaa nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadiisa iyo yahuudda arrintii saas ahayd na yahuuddu waa awoodi waayeen inay u bareeraan oo mubaahalada iyo ishabaarka nabiga iyagu ishabaarayeen calayhi salaatu wasalaam ay ka qayb qaataan arrintaas markii nabigu soo bandhigana way iswarsadeen waxayna dhaheen ninkaanu inuu nebi yahay waa ogtihiin hadduu idin habaarana mubaahaladaasna aad gashaanna inaan qof idinka haraynin oo juf noqonaysaan oo ilmaha idinka baaba'ayaan oo aad cirib go'aydaan oo xooluhu idin dhaafayaan waad ogtihiin oo idinkuna baaba'aysaan kadibna waxay ka cabsadeen mubaahaladii laakiin waxay ogolaadeen inay jizye bixiyaan dadka muslimiintaana iskaga hoos noolaadaan iyagoo ducafo ah oo adillaa ah allah marka meeshan wuxuu leeyahay haddii yahuudey adinka qiyaamuhu uu khaalis idin yahay oo inta kale na ay ahlu naar yihiin adinkuna ahlu janna tihiin arrintaas waxay keensanee adduunya aakhiro inaad aakhiro jeclaataane aakhiro iyo geerida jeclaada kadibna allah wuxuu sheegay subxaanahu wa tacaala inaysan geeri jeclaanaynin oy geerida necab yihiin allah marka wuxuu yidhi qul waxaad tiraa nebi maxamedow in kaanat lakum hadday idiin ahaatay adinka addaaru alaakhiratu daarta aakhiro yahuudey cinda allaahi alla agtiisa khaalisatan xaal ay tahay midii baraxla oo adinka idin gaar ah min duuni nnaasi dadka sukadooda iyo dadka ka soke adinka idin barax la'dahay oo qiyaamaha jannada adinku aad leedihiin oo jannada qiyaamaha adinka laydinku gaar yeela fatamanaw lmowta geerida jeclaada in kuntum haddaad tihiin saadiqiina kuwa run ku sheegaa qiyaamaha inaad ahlu janno tihiin ilaahay marka wuxuu yidhi walan yatamanawhu ma tamaninayaan oo ma jeclaanayaan mowdkay geerida abadan weligood yahuudu sababtu waa maxay bimaa qadamat bisababi maa kii sababtiis weeye
qadamat ay hormarsatay aydiihim gacmahoodu ay hormarsadeen oo xumaan ah nabi maxamed inuu nabi ilaahay ay ogyihiin beeninta la beeniyana in naar lagu mudanahay ogyihiin kitaabka nabi maxamed lagu soo dejiyo quraanka inuu hadal ilaahay ay ogyihiin beeninta la beeniyana in naar lagu mudanahay ogyihiin way ka baxayeen markay inay ahlu naar yihiin way ogyihiin inay ahlu naar yihiin way yaqiinsan yihiin inay ahlu naar yihiin haday saatan ku dhintaan ay naarta galayaan laakiin warka ah ahlu janna nahay bool xooftu ka yahay Allah marka wuxuu yiri maadaama ay ogyihiin inay ahlu naar yihiin qiyaamaha naaru sugayso ma tamaninayaan geerida oo geerida waa nicib yihiin maxaa yeelay haday dhintaan waa la naarahay naarna waxa ka xigta inta ay ka dhimanayaan wallahu laakin ilaahi عليم وامتك علم بدن بالظالمين ذاتك ظالمين تا ويهود ينوعودو كلا إلهينا سبحانه وتعالى ساع عقابا مال المال كمدا ولا تجدنهم والله لا تجدنهم وادغاني سيهودا احرص الناس إليهين ذاتك كو دالك بدن على حياه نولل نولادو ومن الذين كوينا إن نرشك جعلهن اياد اوغانيسا اشركوا شركك سميه ومشركين تاها يودوا او جعليها او جعلانا أحدهم يهودا متكود لو يعمر هذه العمر السيلة هي 1000 سنة كن سنة إلا عمر سي أيو متكود جعليها وما هو عمر قاسدار يا عمر سين تاسنا ما هانن بمزحزحه نين كان يهودي كي كفوغينا من العذاب عذابك إلهي وتلقى الدنيا أما آخره أن يعمر وبدل إلا عمر سياهي عذابك إلهي كفوغي ميسو والله إلهينا بصير ومتك علم بدن بما يعملون يهود وحي سمينا ايان ويفلكنا ايان الله وحشه سبحانه وتعالى يهود إليهين ددك او فليسن وانا نفط جعل انت الهي ابورنا ونفج عليهين وحكى لا اسك دايه مشركينتا بقتيغا غلطه oo asnaamta caabuday inay ka nafci celihiin maxay yeelay mushrikiintu ma ba aaminsana qiyaamaha dadka in la soo saaray kuwa laakiin waxay og yihiin qiyaamaha dadka in la soo saaray waxay kale og yihiin qiyaamaha markii dadka la soo saaro in ayaga la naaro oo ahlu naar yihiin saadarteed waxay ku dadaalayaan say u noolaalahaayeen mid walba oo yahuuda kamidana wuxuu jeclaalaha waligiin inuu iska noolaado ama kun sano inuu noolaado jeclaalaha allahna wuxuu sheegay subhanahu wa ta'ala kun sano la nooleeyaa inay socotareeyeen intuu raba han noolaado cimri kasto la siiyo iyo walba cimrigiisa loo dheereeyo cimri dheereyntaasi inay sanaarti ilaahay ka badbaadinayna allah sheegay subhanahu wa ta'ala haddii marka warka ay sheegayaan u dhab ahaa laha warkaas oo ah inay ahlu janna yihiin iska dhaaf in ayay kaliya ahlu janna yihiin inta kalena ahlu naar yihiin inay sugnaato iska daayay hadday u sugnaa lahayd inay dadka jannada la geeyaha ay ka mid noqoayaan oo ay ka mid yihiin yahuudu waxay jeclaalahaayeen geerida oo nafta iyo dhimashada waxay jeclaalahaayeen dhimashada jeclaalahaayeen maxaa yeelay qofkii hubsada oo ogaada qiyaamaha inuu ahlu janna yahay adduunyo wuxuu isku dhajiyaa ma dhama qofkaas wuxuu jeclaanaa adduunyada inuu hadiiba ka tago soo jannadii ilaahay hadiiba u tiimbado haday marka ogaalahaayeen qiyaamaha khayrin ugu horeeyay janna ilaahay adduunyo isku ma dhajiyeen adduunyada waxay isku dhajinayaan waa inay hubaan og yihiin qiyaamaha inay ahlu naar yihiin warka ah marka qiyaamuhu anagu noo sugnaado khaalis noo yahay ya nicmada qiyaamuhu anaga khaalis noo tahay noo barax laadahay waa hadal hurgufo beena oo waxba ka jirin dadkana ayaga u fulaysan yahuudu waligoodna saasi ahaayeen wax ka fulaysan yahuuda lama arko waqti walbay joogaana cidii markaas ayaga daris la aha dhibaataysa xiliyadii hore iyo xiliyadii dhexe iyo xiliyada hadda la jooga ba yahuud waligood afulayo kuwan hadda Israa'iil jooga oo dadka muslimiinta ah oo Baytul Maqdis ku nool oo Falastiin ku nool dhibaataynayna cadadkoodu waa yar yahay laakiin waxa ay dadku dhibaataynayaan waa hub aad u culus oo heestaan iyo garab istaaga gaalo dhan ayaga garab taaganta gaaladaas oo ama yahuuda ama nasaara ah ama gaalo kale mushrikiin ah garab istaaga ayaga garab taagantahay hubka caalamka lagu sameeyo midka ugu casrisan mar Allah markuu soo baxo waxa laga yaabaa Talaabib in laga soo dejiyo ayaga loo keeno say ugu gumaadaan dadka muslimiinta ah ama Falastiiniinta ah ayaga la degan ugu gumaadaan wa illa hadii laakiin xagga hubka dadka la degan ayagu ay ka sinaarayeen mar hora wixii ku dhici jiray yahuud ay ku dhici lahaayeen oo meesha lagu kala tagi lahay oo lagu lahay oo lagu dhibaatay lahay yahuud marka waa fulayo ilaahay marka wuxuu leeyahay wax kale iska daayay mushrikiinta ay ka fulaysan yahuud الله مركو حيو ولا تجدنهم والله لا تجدن وأدغانيسهم يهود وأغانيسا
أحرص الناس dadka ku ugu dadaalka badan inay yihiin ala xayaatin nolol la noolaado dadka inay ugu dadaali og yihiin iyo xagga nolol jaceylka dadka ku ugu dadaalka badan inay yihiin waa ogaanaysa wa min alladina kuwina inay nolosha uga dadaali og yihiin oo nolosha ka jecel yihiin waad ogaanaysa ashraku shirkiga sameeyo oo mushrikiinta aha yawadu wa jeclaana ahaduhum yahuuda midkood law yu'ammaru in la umri siiyo 1000 sanatin kun sano in umrigiisu noqdo ayuu jeclaana يعني waxa laga wada waqti dheer in umrigiisu ahaado ayuu jeclaana wama huwa mana ahaanin umrisiintaasi iyo umriga dheeri bi musahzihi midkii ka fogeynaya ninkan yahuudiga min alcadaabi cadaabki ilaahay uu tala galo ama adduunyo ama aakhiro mid ka fogeynaya ma ahaanin an yu'ammara wa badal wama huwa laga badala an yu'ammara in la umrisiyahi ma ahaanin mid ka fogeynaysa عذابك إلهي والله إلهينا بصير ومدكي كعلم بدن بما يعملون يهود وحي سمينا أيان إلهي يانا سبحانه وتعالى كحسابنا كان أمال مرينا وحمان نذا هو يهود إفالكنا أيان يسكد بوريقا درسي يوننا ما أنتلك سنوجوه والله سبحانه وتعالى على وعلم بالله التوفيق اللهم من يرى هذا المقطع ومن ساهم فيه ومن أعان على نشره اللهم فاغفر له ذنوبه كبيرها وصغيرها جلها ودقها عظيمها ودقيقها يا رب العالمين كوغوما قصبايو إنات فافيسو بلسي الله درتي كفافي